maanta soomaalida maxaa waay laga hadlaya fanka waa macnaha dadka marka waa jaceelka waaba jaceelka maba dhammaado laakiin maanta soomaalida waxay jeceshahay ku dhahay ayada inuu ilaahay isjeclaysiiyo jaceelka ugu weyn oo maanta soomaalida u baahan tahay ayada waa waxay jeceshahay ciribteeda inuu ilaahay isku dhigo waxay jeceshahay ilaahay inuu iswaafajiyo waxay jeceshahay ilaahay inuu u dembi dhaafo waxay jeceshahay ilaahay inuu isku cafiyo marka jaceelkaas waay kan laga shaqaynayo kan xoogga la saaraayo oo ay mu'alifiinta culummada mu'alifiinta haddii alkuur yahay inta oo maaragtay oo maaragtay oo arrinta maaragtay oo maaragtay oo door ku leh inay maaragtay u istaagaan oo dalkii loo duceeyo dadkii loo duceeyo adiga fiir hadda su-aala ay weydiinayo adiga su-aala ay weydiinayo su-aalaha qaarkood aniga saan kugu sharxo inaan ku balbalaariyo mayna waayo waxyaaba adi arkin waa adiga 24 sanaad sheegatay 24 sano maanta 24 beri le waay maanta waqtiga markaa fiirsid marka aniga maxaan soo arkin miidhahaysid adiga macnaa wariya tahay adiga miidhahaysid abwaanow aniga maxaan soo arkin maxaa iga dhiman bal isla su-aasha laftirkeeda aan ku laabanay bal maxaana soo arkin aniga jiilkayga marka laga hadlayo kale maxaan la soo arkin maxaana la soo kulmin maxaan u baahannahay xilligan isweydii adi markaas jawaabtaas jawaab oo hal qof ku filaya maaha macnaa adiga maxaad uga jawaabtaa waa joogoo dhan karaan ahaan waaba ku sheegay ani waxaan ku sheegay jaceelka soomaalida hayo waa ku tiriiba ya adiga maanta waxaa ku haya inaa waalidiinta meeshay joogaan oo gudaha dalka ina ku booqatid ma socotid dhaqaaqdid iig ku imaadaan dalkaaga ilaahay maaragtay oo maaragtay ku dejiyo dadkaaga ilaahay iswaafajiyo guushaada waa ya okay adi hadda fiiri xili oo waxaa adig aad joogtaa aniga iyo dadka lamidka ah adi iyo macnaha jiilkiina waxaad joogtiin xilligiini uu ilaahay macnaa idinku talagalay marka maxaa niga go-an makasay adi siiba wariyaaba tahay adi maxaa kaa go-an makasay waayo su-aalaha inay ahaadaan maxaa naga horeeyey anka wacyiga naga horeeyey muxuu ahaa maxaa lagu dhaqmo maxaa socday macnaa jawaab kasto inaa gooni adig u dhigitid jawaab kasto macnaa waxawaaye waxaa ku barahey waxyaabo badan adoon iskool u gelin adoon jaamacad u gelin haddaa u geli lahaydna aka heli lahayd aka baran lahayd ya maanta soomaalida maanta mar ay isugu baahi badan tahay maanta ma jiro soomaalida waa israbnaa waa isjecelnahay walaalanahay isma waa nahay dhinac walbaa ka dhalani dhinac walba tawoog iyo caano dhinac walbaa ka dhalani insha allah ilaahay tawfiiqda waana waafajinaa laakiin adig haddii aad saxaafadii tihiin haddaa kusoo biiroosin saxaafadda oo ku cusub tihiin soo dhawaada marka hore marka xiga hawla idin taala hawlaa idin taala hawshaas idin taala marka ma ahan inaad dad wawareysantiin ama fiiri adiga maskaxda ilaahay ku siiyey kaamar ilaahay ku siiyey kuu rakabi adigaa oo socdaa wax duubi kartaa oo kaamara adoo isticmaali mimiriga maskaxda kadib iska qor wixii ha kaa noqoto maaragtay saddexda ilaalinta u baahan waayo warbaahinta inay ilaaliso diinta dalka dadka saddexdaas ayaa lagu fududaaya waayo warbaahinta siiba ma og tahay talo waxaa u baahan dadka oo hoosha ku cusub dadka oo ku dhex jiro jaatalooyinkooda hore usoo qaateen haddana in lala taliyo lagama caajisaayo laakiin dadka hoosha ku cusub aa u baahan
in la soo dhaweeyo waxyaabo badanna macnaa loogala hadlo loo iftiimiyo la tuso macnaa ani ad hadda adami wareysoos waa wada sheekaysiyaal dhaha macnaa waxaan nahay abwaan iyo wariye oo maaragtay wada sheekaysanaya sheekada saas ku qurux badan tahay marka anigoo ka faa'iideysanayo fursadan horta waxaan ka rabaa bacdaa dhuugso in aad ku furto dhextaalna oo dhigto kuna herto heestii dhexda bacda dhuugso waayahay abwaan intii ruwaayada samayn aad ku jirtay intii wacyigelin aad ku jirtay intii taariikhdaada fanka aad ku guda jirtay maxaa kuugu adkaayo kusoo maray oo aad istiriniyo marxaladdan waxay u baahan tahay in qaab kale loo wajaho ama kugu adkaaday fiiri adiga haddii aad oo ilaahay ku fahansiiyo sida xaaladda dalkaaga iyo dadkaaga ku sugan yihiin hadduu ilaahay ku fahansiiyo ilaaha la tala saartaa leesmana waalo nasiib wanaag waxaan xusaynaa abwaaniin oo howlo badan oo weliba taariikhda ay xusi doonto oo howlo badan dalkan ka soo qabtay haddana haayo markii aan kala hadlo markaan gelbinaynay abwaanka qaaliga ah ilaahay caafimaad ha siiyo boogaana abwaan maxamed ibraahim hadraawi waxaan ku gelbinay todoba abwaaniinaan ahayn oo isaga todoba ku yahay lixda kale waxaan ku ahayn abwaan cabdidho abwaan axmed cabdigaashaan oo maqan waa salaama walaalkayga abwaan mustafa sheekh cilmi oo isagana maqan waa salaama walaalkayga abwaan cabdi maxamed amiin allah naxariista isagana waa dhintay marka markii aan gelbinaynay xilli waxay ahayd shirkii carta markii laga yimid waaye waa 2005 camal iska dhig 2005 iyo 6 camal iska dhig haweenba tuulaa jiifanayna haweenba tuulo haweenba magaalo dadka marka waxay nooga hor macnaa ay soo dhaweynta macnaa waxay nooga hor imaanayaan meel oo maaragtay intaas kilomitir intaas jacaylka abwaanada loo qabo maaragtay iyo maaragtay maxbada sida maaragtay Soomaalida isku jeceliin jacaylkeeda Soomaalida ma dhamaanayo jacaylka Soomaalida inuu koramaayne ma dhamaanayo aan ku dhahay masuulayo asig laana waxnahay dad oo is dhalay si ismu isku dhadhow yahay adduunka ma ka jiro dad sidaan anaga u dhalanay dal u dhashtay ma ka jiro ma jiro Soomaaliland waaye dal ehel oo maaragtay isku diin oo isku caqiide oo isku dhaqan oo isku hidde isku af maaragtay Soomaaliland waaye marka doorka ay ku leeyihiin abwaaniinta afmaalada doorka ay ku leeyihiin waa iska cadcadiyey haddaan la iska yeelyeelin waa door u baahan taxadir badan iyo in lala socdo xaaladaha beentana la iska ilaaliyo waayo dhigaha dadka been uma baahan waa gartay haddii lagu bartana been loo waa tahay insha allah waxaan rajaynaynaa in maaragtay adinkana aragtaan maaragtay insha allah inaad wax badan maaragtay oo maaragtay oo idinka dhiman inay buuxsamaan ilaahay idinkiisa oo maaragtay waan rajaynaynaa insha allah waa gartay abwaana markaan dib ugu laabano dhanka fanka Soomaalida oo kale inkastoo dadku ay yiraahdaan fankii hore iyo fankan farqi weyn baa u dhaxeeyo haddana bal adiga ka aragti ahaan maadaama marka xaji banaadir aad tahay abwaan Soomaaliyeed aad tahay bal waxaad iiga warantaa farqiga u dhaxeeyo iyo fankan hadda jira dhalinyarada ku soo biiraysa sida loo wacyigelin karo loo toosin karo dariiqii saxda loogu leexin karo horta waraan ku sheegaa hay
shay markuu fawda u ekaado fawda markuu u ekaado ma lagu degdegaba wax badan indhaha laga daya maxaa ula jeedaa fawdo shawaad fawda macnaa macnaha fanka hadda socda fawdo miyaad ula jeedaa adiga fiiri waxaan ka hadlaynaa aha adiga dhegaysano fanka hadda jiro adiga dhegaysaba hay adiga dhegaysaba laakiin aniga jiilka hadda la jaan qaadaya ka mid ah adiga fiiri waxaan rabaa horta waxaan rabnaa waxaan waa u eg yahay iyo waxaan waa yahay iyo waxaan waa soo dhow yahay iyo waxaas horta in la kala saaraan rabaa hay markaan fanka hadlayno fankii hore fiiri kuwa haddana fiiri adiga isku fiiri waxa kuusoo ani ma rabo inaan cidna aan wax ka sheego ama ataago may anagu si gaar u ataagayna laakiin fanka hadda jiro fanka fiiri waxaan ku dhahay haddaa ku sheegay waxaan ku dhahay waa laga fikirayay wax badan xilligii hore waxaa la gelinayay juhdi badan ma aragtay waxaa jirtay fatashaad badan waxaa jirtay maxafiis oo la dhahay faafreebka oo erayada baarin ogolaansho lahayn ma jirinba mala akrinayninba wax kastoo iska faafreebnaayeen warbaahintana waa macnaa waxay ahaydba mid iska koobana ahayd marka hadda waxa waaye be qof walba raadii wataa wuxuu wataa kan marka adiga naftaa fiiri adi fiiri baadi maanta malaabtay waxa adiga ika kusriya jira makasi waxa la makasi runta inaan ka leexleexano wax meesha ku jiro maaha waa gartay runta inaan ka leexleexano wax meesha ku jiro maaha